Maamul goboleedka Hirshabelle ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay inay ka qayb qaadato gurmadada caafimaad ee loo sameynayo dadka uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo dhowaan ka dillaacay degmooyinka uu maro webiga Shabeelle ee gobolkan dhaca bartamaha Soomaaliya ee Hiiraan ku yaala. Warkan waxaa sheegay agaasimaha xiriirka degmooyinka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Hirshabelle, ahaana gudoomiyihii hore ee degmada Buloburdi, Cabdi Daahir Guure Karoore. Master Karoore ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan tiro dad ah oo saacadihii lasoo dhaafay degmooyinka Buloburdi iyo Jalalaqsi xanuunka shuban biyoodka uu geeriyooday. Shirkan jiraad wuxuu ku saabsan yahay arrin ku saabsan arrinta shuban biyoodka degmooyinka gobolka Hiiraan qaybaha uu maro webiga Shabeelle sida Jalalaqsi iyo Buloburdi dhaanta ka timid oo alarmiga ah inaan la wadaagno wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka iyo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka oo aan ugu baaqno inay si degdeg ah arrintaas uga howlgalaan. Sidoo kale guddigii tax force ka ahaa oo hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo maamulka gobolka waxaan leenahay mar labaad waxa qaylo ka soo yeertay oo dhaantoodu taagan tahay Buloburdi iyo Jalalaqsi. Waxaan ugu baaqaynaa in cid walba oo samafalkaas ka shaqeysa ay si degdeg ah arrinta u gaarto gurmad badan loo fidiyo magaalooyinkaas oo markii hore la daala dhacay fatahaadii iyo go'doonada haddana ugu darsaday xanuunkaas shuban biyoodka waqtiga lagu jiro adag. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka oo ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka inay si la dareemi karo oo gurmad ah oo emergency-gaas ay ka howlgalaan. Dowlad goboleedka iyo dowladda dhexena waxaan leenahay dadkaas Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo dowladnimada diyaarka u ah oo dowladnimada aad u taageersan in gurmad loo sameeyo. Waa garan kartaa bulsho caafimaad darro ku dhacday iyo xanuunka ay leedahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad u codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkuba inay iska kaashadaan arrinta caafimaad ku saabsan. Kulankeena maanta wuxuu ahaa saxaafadda la wadaagaynaa warkeenu aan cod dheer ku gaarsiinaynaa in degmooyinkaas Buloburdi iyo Jalalaqsi labadaba shuban biyoodka uu si adag u haayo. Xanuunkaasna haddee wuxuu u baahan yahay gurmad caafimaad. Hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe wasaaradahoodaba si wada jir aan u codsanaynaa inay soo gaaraan. Buloburdi iyo Jalalaqsi waxayna soo gaarsiiyeen in ay arrintaas bilaabatay tuulooyinka magaalada Buloburdi ku saabsan geesaheeda oo biyaha webiga laga isticmaalo. Dhimasho ilaa iyo 6 qofood ayaa maamulka degmadu soo gudbiyay. Jalalaqsina sidoo kale magaalada gudaheeda ilaa iyo 4 qofood ay noo sheegeen. Laakiin waa xaalad xanuunka uu taagan waa la soo wada dhacay. Labaduba hadda alarmigu waa ka taagan yahay. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, Beledweyne.